bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal halka aad naga daawanaysaan oo aad nagala socotaan waa janalkaynu ku leenahay youtube-ka ee Somali 24 waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyadeena qodobada aad ku daawan doontaan saaxiibayaal waxa ugu dooron xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka iyo xamse cabdi barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo khilaaf culus uu soo kala dhaxgalay xamse cabdi barre ayaa madaxweynaha dalka ka codsaday inuu xilka qaadis ku sameeyo mahad maxamed salaad agaasimaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA maadaama mahad uusan lahayn khibrad amni iyo mid sirdoon. xasan sheekh maxamuud waa uu ka diiday xamsana iminkaba waxa uu ku dhow yahay inuu iska casilo xilka ra'iisul wasaarenimo ee Soomaaliya. falaqayn ayaynu saaxiibayaal daawadayaal ku sameyn doonaa. maxaa ka jira wararka kale ee sheegaya in mahad salaad kadib markii uu maqlay in xamse uu dalbaday in xilka qaadis lagu sameeyo oo ciidamo NISA ku hareereeyay guriga uu xamse cabdi barre ka degan yahay magaalada caasimadda Muqdisho. warar iyo sidoo kaleba xogayaan saaxiibayaal idinna istaagtaag ciidan ayaa ka jira caasimadda. khilaafka xasan iyo xamse, xilka qaadista mahad salaad iyo sidoo kaleba amni darada xooggan ee ka jirta Muqdisho ayaa barnaamijkeena saaxiibayaal idinku soo koobi doonaa. kiiska Ikraan Tahliil Faaraxna xog ayaa ku soo korortay, haddaba waynu ku dhex lifaaqi doonaa iyo daawada saaxiib muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo bir subscribe inoo saar channelka furagan balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbino. waa ku mahadsantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba. qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigan aragtidaada saliimka inagu reeb. markaana daawada saaxiib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada ama falaqaynta qodobadii aynu soo dulmarnay inuu ku bilowno. xasan sheekh maxamuud kadib markii uu ku soo baxay doorasho madaxtinimo oo Soomaaliya ka dhacday 15 May sanadka 2022 oo uu galay madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya, waxa uu bilaabay inuu saaxiibadiisa siyaasadda ee ku jira xisbi siyaasadeedka uu isaga hogaamiyay UPD uu magacaabo xilal sarsare iyo sidoo kaleba xilal ku jira ama xilal kamid ah hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa wax yar 10 maalin markii uu joogay xafiiska Villa Soomaaliya waxa uu agaasimaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA u magacaabay mahad maxamed salaad, kaas oo ay ahaayeen saaxiibo siyaasadeed oo ay ku wada jireen xisbi siyaasadeedka UPD. xasan sheekh maxamuud ayaa kadib waxa uu go'aansaday inuu ra'iisul wasaare u dhiibo xamse cabdi barre oo isagana kamid ah xisbi siyaasadeedka UPD. saaxiibadiisii ayuu siiyay xilalka ugu sareeya dowladda federaalka Soomaaliya, balse haatan waxaa la soo warinayaa in khilaaf culus uu soo kala dhaxgalay isaga iyo sidoo kaleba xamse. khilaafka kan ayaana waxa uu salka ku hayaa sida ila xogogaal ay noo xaqiijiyeen xilka qaadis uu xamse damacsan yahay lagu sameeyo mahad maxamed salaad agaasimaha hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. xilka qaadistaas oo uu xasan sheekh maxamuud isagana liqi leeyahay. xamse iyo sidoo kaleba xasan ayaa iminka kala ujeeda kala fikir ah, khilaaf ayaana labadooda ka dhex urtay, waxaana la soo warinayaa in khilaafkan uu cuuriyaamin karo howlaha ee qaranka Soomaaliyeed ay labaduba u hayaan. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay gudaha dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada New York oo uu kaga qayb galayo shirka meertada 77 ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay, kaas oo looga hadlayo arrimo dhowr ah oo saboolnimada iyo sidoo kaleba xasilooni darada ay ugu horeeyaan. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kadib markii uu ka soo laabtay dalka Mareykanka waxaa la soo warinayaa inuu la fariisanayo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre uu ka dhaadhicinayo in mahad maxamed salaad lagu sii hayo xafiiska amaba agaasinka hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. xamse ayaa mahad salaad waxa uu diidan yahay la leeyahay in mahad uusan lahayn khibrad dhanka amniga iyo dhanka sirdoonka labadaba.
mahad maxamed salaad ayaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanada ka midka ah golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. sidoo kale mahad waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii ka midka ahaa amaba ku jiray baarlamaankii 10aad ee markaasiba hogaamiyaha uu ka ahaa amaba gudoomiyaha uu ka ahaa ninkii lagu magacaabayay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo isagana u xirxirnaa rajiimkii madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo sidoo kale Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ay hogaaminayeen. mahad salaad ayaa intii Farmaajo uu joogay Villa Soomaaliya waxa uu ahaa mucaarad alla gamban aragtidiisa, shacabka u cadeeyay mowqifkiisa geed gaaban iyo mid dheerba u kora sidii Farmaajo looga saari lahaa madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya. sidoo kale mahad maxamed salaad waxa uu ka mid ahaa tiro xildhibaan ah oo gaaraya 15 kuwaas oo xilligii Maxamed Mursal uu ahaa gudoomiyaha golaha shacabka laga mamnuucay fadhiyada goluhu uu yeelanayo kadib markii ay sameeyeen buuq iyo sidoo kaleba sawaxan la xiriira in Farmaajo aan loo kordhin muddada uu xafiiska joogayo. tiradan xildhibaanada ayaa waxa laga hor istaagay in ay yimaadaan fadhiyada golaha shacabka, waxaana Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu go'aankaasi gaaray kadib markii ay ka hor yimaadeen aragti uu watay oo ahayd in muddada loo kordhiyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya. Maxamed Mursal iyo sidoo kaleba Farmaajo oo ah madaxweynihiisii ayaa la isdaba dhigay. haatan Xasan iyo sidoo kaleba Aadan Madoobe ayaa jooga Soomaaliya oo ka ariminaya. waqtiga iyo waayaha ayaa dadka bedela, waxaana haatan lagu jiraa waagii ay damaashaadi lahaayeen kooxda Damul Jadiid oo uu hogaamiyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. mahad maxamed salaad oo ahaa mucaarad aan fikirkiisa luuqyada la gelin ayaa haatan waxaa lagu abaalmariyay xilka agaasinka NISA, waxaase iminka ka hor imaanaya in uu jagadaasi hayo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre, kaas oo udubdhaxaad u ah howlaha horyaala xukuumadda oo isaga leeliya ee dan qaran, taas oo dhowaan la soo dhisay isla markaana ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in ay xukuumaddu tahay mid tayo leh isla markaana waayo aragnimo lagu soo xulay, madaxweynahana uu kala tashaday magacaabideeda amaba soo saarideeda. dagaal culus ayay dowladdu kula jirtaa dagaalyahanada Al-Shabaab, shacabka isgarabsanaya ayay ka faa'iideysanaysaa kacdoonka shacab ee dhashay ayayna waxa ay isleedahay waa awoodda kaliya ee lagu wiiqi karo dagaalyahanada Al-Shabaab. Xamse Cabdi Barre ayaana waxa uu fahamsan yahay haddii mahad maxamed salaad uu sii joogo xafiiska NISA in aanan waxba laga gaari karin oo wax natiijo aan laga soo hoyin karin dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, maadaama mahad salaad uusan lahayn khibrad sirdoon oo uu ku keeni karo xogaha xasaasiga ah ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA ka hesho kooxaha la dirira dowladda Soomaaliya Al-Shabaab ugu horeyso. xilligii Fahad Yaasiin Xaaji Daahir hay'addu waxay ahayd mid markaasiba dabagal samaysa, baaritaano samaysa oo xitaa ku xiran wadamada caalamka sirdoonada markaasiba ka jira. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaana la xiriirayay inta badan warbaahinada iyo sidoo kaleba ilaha sirdoon ee wadamada kale ee caalamka sida Qatar, waxaase haatan la warinayaa in mahad maxamed salaad uusan wax xiriir samayn maadaama howlaha amniga uusan shaqo ku lahayn oo uu yahay oo kaliya siyaasi rugcada ah oo in muddo ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kaleba Xamse Cabdi Barre go'aankooda lama cadeyn karo. waxa ay arrinta tan ku soo dhameeyaan ayay shacabka Soomaaliyeed ka warsugayaan dhammaantood, balse waxaa loo badinayaa in mahad maxamed salaad uu xafiiska sii joogi karo maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhaga adeegayo in mahad salaad uu ka sii arimiyo halka iyo habar Khadiija oo taliska hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. mahad salaad ayaa ka shaqeynaya oo hooshiisa ugu weyn ka dhigtay kiiska sargaal Ikraan Tahliil Faarax, maadaama Ikraan ay ahayd qof ka tirsan NISA oo daadeeda lagu sheegay 23 taas oo lagu dulmay awoodda dowladnimada xilligii uu agaasinka NISA ahaa Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wariyihii hore ee telefishinka Al Jazeera.
haddaba xogaha macluumaadka kusoo kordha arrimahan oo idil barnaamijyadeedana dambe ayaan saaxiibayaal daawadayaal idinkugu soo gudbi doonaa. muuqaalkan like saarsina sheergare inagu soo bir subscribe inoo saar channelka Buraga Malarka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinkugu soo gudbino. waa ku mahadsantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba. qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka ay noogu reeb. tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo saaxiibayaal.